wafdi miisaan culus loo isugu dhafan hay'adaha UN-ka kuwa caalamiga iyo wasaaradda duulista iyo hawada maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco qurbo joog ayaa kormeel ballaaran ku tagay dhismaha madaarka Burco oo xilligan dib u habeyn casriyeyn ku socoto waxaana wafdigani lagu soo wareejiyay gabi ahaanba dhismaha madaarka dhulkiisa halkaas oo ay warbixin kaga dhageysteen injineerka gacanta ku haya hawsha nashqadeynta ee madaarka injineer Faarax Xuseen kormeerkaasi ka shirjiraayay si wada jir oo qabteen agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada xogeynta gaarka ee wasiirka gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo qaar kamida madaxda hay'adaha UN-ka ayaa kaga xoog warmeen jiddaha socdaalkan oo ay ku sifeeyeen inuu qayb ka yahay sidii hay'adaha UN-ka iyo kuwa caalamiga ah uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha madaarka Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer Cabdo Axmed Ayir ayaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leeyihiin hay'adahan ee soo booqdaan madaarka Burco gudoomiyahani waxa uu cadeeyay maanta isugu yimaadeen kula bilad ay maamulka gobolka hagayaan isla markaana ay la qaateen hay'adaha UN-ka kuwa caalamiga iyo kuwa wadaniga kaas oo lagaga arisanayo wixii uu qabsoomay hay'adaha UN-ka ee gobolka iyo waliba sidii loogu dhiiri gelin lahaa inay ka qayb qaataan dhismaha madaarka Burco waxaana uu gudoomiyahani sheegay in kulankoodaasi ay ka soo baxeen qodobo muhiim ah saddexda qodob oo ah sidii wire loogu xidhi lahaa madaarka ee darbiga loo dhameystiri lahaa ay dhameystiraan sidii biyaha drainage-ka ama biyuhu madaarka dhinaca galbeed ayaa dhinaca bariba u fororaa marka la eego dhulku saadarteed marka xilliga roobabku da'aan biyo waxay ku soo jabaan si marka looga mooso aanay u soo jabin gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa si gaar ah ugu mahad celiyay hay'adda UNDP oo lacag gaaraysa $69,000 Mareykanka ugu deeqday dhismaha madaarka Burco agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Axmed Dalal Faarax ayaa dhankiisa bayaamiyay in dhismaha madaarka Burco uu xilligan si habsami leh uga socdo shaqadii isla markaana kharashaadka ay dawladdu kaga qayb qaadanaysay ay gabi ahaanba ka ciyaartay door muhiim ah waxaana agaasimahani ugu baaqay qurbo jooga Soomaaliland inay qaybtooda ka qaataan dhismaha madaarka Burco qoladii qurbo jooga reerka Togdheer wali waxba laga ma hayo gudiduna ballanay u qaaday in ay meesha ka kacaan oo ballankii ay qaadeen iyo kaftankii ay wasiirka kula kaftamayeen maxaad airportka Burco wax uga qaban weyday ayaguna dhinacooda kaga dhabeeyaan wakiilka hay'adda UNDP ee Soomaaliland Stephen ayaa geestiisa sheegay in hay'adda UNDP ay dawladda Soomaaliland ka taageerayso sidii ay u hirgelin lahayd madaarka Burco isla markaana uu noqon lahaa mid caalami ah oo qaabili kara diyaaradaha waaweyn waxaana uu soo jeeday in si midaysan looga qayb qaato dhismaha madaarka Burco oo uu tilmaamay inuu ahmiyad ballaaran u leeyahay Soomaaliland iyo gobolada bariga waa markii ugu horeysay wafdi miisaan caynkan oo kala ah isla markaana ka kooban ilaa 5 hay'adood oo kamid ah UN oo ay kamid yihiin IOM, UNDP, UNHCR, WFP, WHO iyo kuwa kale oo caalami ah ay gabi ahaanba booqdaan madaarka Burco isla markaana ay ballan qaadaan inay ka qayb qaadan doonaan gacan ka geysashada dhismaha madaarka Burco. Xabsaan Faarax Cabdilaahi